rag cadaalad waayay sidii cawshi kala yaa Somaliland ee dhalinyarada caytamaya mid baa leeyahay dhalinyaro markaad idinku commentiyada ku caytamaysa waxaan u maleynayaa dulmi ma hatiin afna waa nagu dulmideen adina waa nagu dulmideen waana layse waa dul qaadanay oo waa nacayseen waa dul qaadanay maslaxadan waligeyn goobaynay laakiin maanta maya salaajigeeda dareeskan aniga waxa ay xidhay maaha wallahi qabiil iyo qaran iyo dastuur iyo calan aan difaacayo toona way iga bari weeyaan waxaan u xidhay idinka ay xidhay markaad disheen walaalada iyo marka abtiyaasheen aad disheen haddana aad ku faantanteen oo aad waliba meedkood inta dul joogsateen aad ciidii ka dul laqaajin markaas ayaan bilownay salaajigeeda waxaan arkay oo u jawaabaya kale dhalinyaradu waxay leeyahay way ugu sawir weeyaan marnaba ashyaadu sawir way noqon karaan qoriga iyo arrinkan dhiirigelin iyo sawir way noqon kartaa laakiin qadiyada iyadu igu sawir ma aha waa kacnay waa baraarugnay khalaas ma soo laabanayno insha Allah billahi ta'ala sidaana waa naqaanayo waa wanaag weeyaan hadaad walaalayna wanaajisata oo dadnimadeeda iyo midnimadeeda noo ogolaataana way soo dhaweynaynaa sidaana waa naqaanayo waa waxaad ka dheeftaa walaalayaal in badan waxaynu ka hadalnay sida qofka bini'aadanka ahi u bukoodo marna u caafimaado sida bini'aadanku marna u quweysto marna u daciifo sida mar uu u horumaro marna uu u dib dhaco ayaa mujtamacaadkana acraada iyo tilmaamahaasi ay ku yimaadaan qofku markuu bukoodo dhakhtar baa la geeyaa dhakhtarku shaybaadh buu mariyaa xaaladiisuu qiimeeyaa daawooyin buu u qoraa baxnaanuu geliyaa mujtamacaadkana culimada iyo ducaadda iyo indheergaradka ayaa qiimeeya oo shaybaadha oo xaaladooda diraaseeya oo dawadoodu noocay noqonayso u tilmaama ama markaa ha adeegsadeen oo ha isticmaaleen ama iyagu gacanta ha ka qaadeen waxaynu walaalayaal ka dheregsannahay bulshadeennani inaanay bad qabin inaanay caafimaad qabin inay bugto oo tobannaan iyo boqolaal cudur hayaan waynu ka dheregsannahay waxaynaan aad diyaar ugu ahayn inaynu farta isugu fiiqno ama aynu taabanno boogtayna bugta dawadii loo baahnaana aynu adeegsanno ama isticmaalno waxyaalaha walaalayaal ina hayaa waa badan yihiin dhankii loo dayaba waa u bugnaa laakiin way sii kala daran yihiin waxaa la yidhi ina allabiiba idaa badaa min jinsihi maradaani daawa alakhtara qofka caqliga badan haddii laba cudur lagu sheego wuxuu yidhaha keebaa khatarsan aan iska daweeya marka hore ka sahlan waa u soo laabanaya xaqiiqaduna waa caynka cudurrada ina hayaa waa badan yihiin laakiin cudurka ugu halisaysani waa cudurka qabaliyada waa qabyaaladda waxa la yidhaah waxaanaynu walaal naqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waa ku kala farqiyey ama waa inoo sheegay qabiilka iyo qabyaaladda qabiilku waa wax jira oo ilaahay dejiyey oo alla keenay oo xikamu ka leeyahay wuxuu leeyahay rabbi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum qabiilku waa hayb iyo abtir wey axkaam badan buu leeyaho shareecadoo la ilaaliyo waa la ysku hayb socdaa waa la ysku dir socdaa waa la ysku gartaa gayaankaa lagu fahmaa cidda aanad geyin baa lagu ogaadaa qofka waxaa la ogaadaa cidda dhaxlaysa waxaa la bartaa cidda magta ka bixinaysa waxaa la ogaadaa cashiiradiisa qabanaysa fawaa'id kaluu leeyahy laakiin qabaliyadu taa maaha qabaliyadu waxa weeye waa in qofka qabiilkiisa lagu saxo oo la yidhaha kol hadduu ree hebel yahay waa saxaye in lagu garab istaago balaayada iyo baaska uu wado liajli haada annasab lagu raaco in loo cadhoodo isaga awgii in xaq iyo baadilba garabkiisa lagu istaago in lagu kala sarreeyo in laysku muquuniyo in laysu dilo loo dhinto in lagu gabbado oo gabbaad laga dhigto balaaye iyo baas oo dhan bay qabyaaladdu leedahay waa casabiya shareecaduna meel adag bay ka istaagtay waxaynu tilmaami doonnaa dhowrka arrimood ee qabyaaladdu ay hor istaagtay ee wanaagga ah ugu horreyn walaalayaal
qabyaaladu waxay hor istaagtaa iimaanka saxda ah inaad qaadato hanuunka inaad qaadato oo xaqa aad qaadato qalbigaaga u furto qabyaalad baa hor istaagaysa siirada markaynu ku laabanno waxay kutubu siyar qorayaan saddexdii nin ee quraysh ugu madaxsanaa inay habeenkii u soo dhukusi jireen qur-aanka nebigu akhriyayo salaatuleylka habeenkii markay dhegaystaan ee uu salaada dhammeeyo ayay kala dhaqaaqaan hadhowtay isku soo dhacaan way gartaan halka laga yimi halkuu yahay waryaadheen qalad baad samayseene yaan dumarkii carruurtiina arkine ha u noqonnina way isdhaarsadaan habeen labaadkii uu nin walbaa wuxuu yidhaa labadii kale iman maayaane adigu hore soo dhegayso qur-aanka ile waa niman fahmaye haddana habeenkii dambe isu yimaadeen habeen labaadkiina way isdhaarsadeen habeen saddexaadkii buu nin walbaaba wuxuu yidhi kuwii kale iman maayaan oo dhaartii bay fulinayaane bilaahi caleyk ka soo faa'iidayso habeenkii saddexaad bay haddana isku soo dhaceen habeenkii bay saani isu waraysanayaan ninka la yidhaa abalbakhtari ibnu hishaam iyo abujahal wuxuu leeyahay waryaah in badan baad dhegaysanaysaye bal iiga warran maxamed abujahal xakaayadu ku siiya bal u fiirso wuxuu yidhi maxaan ka hadlaa anugu annaga iyo reer bani cabdimanaaf si walba waan u tartannay isagu waa bani maqsuum nebiguna waa bani cabdimanaaf markay quudiyeen ee deeqsinimo sameeyeen annaguna deeqsinimaanu samaynay markay duuleen annana waa duullay markay gabiyo waa gabaynay markay kan qabteen kaasaanu qabannay markaanu jilbaha isula dhacnay eenu kala bixi weynay ayay yidhaahdeen nebi baanu leenahay samada looga waxyoodo goorma annagu nebi helayna soona laga badin maayo walla inaanaan weligay aqbalayn markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun kuwan daalimiintii adiga kugu sheegi maayaan beenaale ilaahay aayaadkiisay hortaagay ninkaa dhan waxaa hor istaagay ee hanuunkuu garanaya u diiday waa ree hebel baa naga badin doona kaftankaana laga helayaa haddaanu qirnay ree hebel nebi leeyiin waa inaanu gaashaanka u daruurno ilaa aakhirkii dambe isagoo kaafira si aad u liidata oo dullinimo badan uu ugu dhintay maydaankii badar markaa qabyaaladdu xaq aad arkayso iyo hanuun aad arkayso odhanaya waa ninku waa hadal wacnaaye horta yuu ahaa waa ree hebel intaasubaad dishay nin wanaagsan buu ahaan lahaye intaasaad dishay ama uu xaqu annaga noo sheegayo isagoo ka ree hebel maaha muxuu ugu sheegi waaye aayaadkii lagu akhriyey iyo axaadiistii loo sheegay ma eegayo wax kaluu ka daalacanaya markaa wax hanuun kuu diiday oo nebiga oo la raaco kuu diiday oo kuu diiday inaad khayrka qaadataa waa mushkilad aad iyo aad u culus qodobka labaad walaalayaal wuxuu yahay bahasha qabyaaladda la yidhaahdaa waxay diidaa oo ay hor istaagtaa dadku inay walaalo noqdaan waxay diidaa dadku inay isku milmaan oo gidaar noqdaan ay cadowgooda kaga hor tagaan waxay diidaa inay muruq kaliya oo midaysan noqdaan oo wax alla wixii colla ah ay kaga hor tagaan bal iyada ayaa lagu kala furfuraa ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican yastadcifu daa'ifatan minhum fircawn markuu doonaya dadka addoonsado qaybuu ka kala dhigay waa fariq tasud qaybi aad xukuntideen ilaa ummadda la qaybiyo oo midaba iyo qabyaalad iyo loo kala sheego sifaad awoodba looma hela in la dhex galo ilaahayna waatuu ka digayey walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin walaalayaal bal qisadaanaynu soo wadna aada ugu fiirso ree madiina laba qabiil bay ahaayeen yuhuud baa isku diri jirtay hubkay isugu dhiibi jireen dabeetana way isdili jireen iyaga ayaa daciifi jiray yuhuudina way daawan jireenoo way awoodaysan jireen dhallinyaradooda u badbaadi jirtay kuwana dhallinyartoodu birta iska asli jireen ubaxba uma kaco kuwana waa u buuxaan iyagoo caynkaa ah ayay dacwaddii tawxiidka qaateen dacwatu nebiyinaa baa gaadhay qalbigay ka nadiifoobeen qaalibkay iska raaceen way walaaloobeen dhan bay u wada jeesteen iyagoo maalin sheekaysanaya oo dhallinyaradii aws iyo khasrad qosolka ka dhacaya aada yaabto ayaa nin yuhuudiya oo gaboobay oo la yidhaha shaas ibnu qays ayaa xanaaqay
wuxuu kuwaas waa ayo salil waa Aws iyo Khasraj oo saasay u qoslayaan oo saasay walaala u yiin oo waa sheekaysanayaan walee haddii abnaa u qayla noo heshiiyaan inaan weligay deganaanayn deetana wuxuu furay beejadkiisa iyo khibradii iyo waay aragnimadii nin dhalinyaro ah oo yahuudi yidhi dhex fadhiiso oo sheekada iyadoon lagu dhaadayn gabayadii laysu tiriyey bayd soo qabo iyagaa dhammaystiri doonee akmil ilfaraaq markaad bayd tidhaahdo bayd labaad bay ku dari ka kallami saddexaad buu ku dari gabayadii markii laystilaye laysu tiriyey ayuunbuu gabay soo qaatay oo soo nagii annaguna saan nidhi maya annagaa maalintaasaan nidhi maalintaa annagaa idinka yar cadbursannay maya waataanu maalintaa annagu idin baacsannay maya maalheblaaye annagaa gacan sarraynay barti baa laysku kululaaday si haddaynu doonno imika baan soo celinno maxaaba inoo haya iminka baynu kala hadhno waayo asilaax ha inoo ahaato duurka iyo meelheblaayo waa nebigii oo jooga yaa dhigay balaayada yuhuudi baa dhigay yuhuudiga xilligaa isku diraya ee qur-aanka oo soo degaya nebigii alloo joogaa sidaas samaynaya muu haysanin idaacado manuu haysanin telefishanno manuu haysanin whatsapp iyo facebook iyo inkaarahan maanta jira muu haysanin bal yuhuudiyo intiiba heshay eeg oo joornaalada adduunka ugu afdheer leh oo youtubeyada ugu waaweyn leh oo iclaanka iyo miidiyaha iyagu haysta markii buu nebigu guntaday uu dhex cararay uu kala qaboojiyey markaasay soo degtay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها مركا ولا ليال ومدح السير بالسوق بابية صومالي دا أركيسان كل بعيل اسكت لي كل بداغسيل اسكت لي اسمرين يا همود انت عادي يجو صباريه انت قعني الريموت باكوشرا dadka loo taag la yahay si baa la isugu baabinaya waayo ubaxaagu inay kacaan baa la diidaya inay wax bartaan baa la diidaya inay dhan u wada jeestaan baa la diidaya iyagu baa istaawanaya markaas ay birta iska aslayaan qodobka saddexaad wuxuu yahay walaalayaal qabyaaladu waxay diidaa dadka ummadda hor kacaya ee hogaaminaya ee badbaadinaya ee qalbigooda nuuraya ee xaaladooda bedelaya ayaa loo abtiriyaa وتقنيمه halkii ugu dambeysay way adoo ceel ku jira oo ceel ku dhacay gacanta lagu soo taagay dadra waa qoloma aan soo baxay qolomaati horta aan ku soo raacay taqniimada ugu weyn arintaana yuhuud baa bilowday iyadoo laga xoog batay oo la adoonsaday ayay nabigoodii ku yiraahdeen ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah waana laga xoog batay boqor noo samee aanu dagaalanay warhooy yuhuud baatiine barreedu biqiye meedu iska day sideenu u joognaa ubadkayga iyo guryahayga baa la haystaa deed waxa taaluud baa la idin magacaabay waa nimankii lahaana loo magacaabo si anna yakunu lahu almulku wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min almal balak taaluud baa la idin magacaabay ma taaluud ma isaga raaskii qaban jiray hogaanka ba aabihiina ma talin awowgiina ma talin aabaya awow ka baxo ma u baahantay cid ku hogaamisa gacantii ku badbaadinaysay ayaa leedahay waa qoloma waa ayo maanta hadduu wax walba akhriyo ninka inoogu cabqarisan hadduu soo baxo ninka ugu caqliga badan ee ugu cilmiga badan ee ugu daacadsani hadduu ilaa waalidii hogaaminaya horta waa ayo waa ayo haybtiis yuu yahay nin fiican buu ahaan la haddaanu ree hebel ahay ree hebel iyo wanaagsan iyo kala daa ree hebel iyo wanaagsan yahay kala daa buu ka odhanay waa dabiicadii yuhuudda wey cillad kale ma marka haddaynu rabno inaynu dad noqonno oo awood yeelanno oo aynu horumarno waa inaynaan qofka haybta eegine caqliyaddu ku socdo iyo cilmigu leeyay iyo daacadnimada iyo siduu yahay waa inaanu eegnaa waa inaan bahashan laynoo soo muusaynin horta ree hebelun ma yahay haa xaarna ahaadee kol hadduu ree hebel yahay annaga ayuuna horgelayaa waa kaayagii adiga maxaa kaa galay waxyaalaha igu cajiibsaneen maqle waxaa ka mid a wiil dhallinyaraa iga sheekeeyey wuxuu yidhi jaamacad baanu dhiganaynay jaamacadahan magaaladan wey hargeysa wuxuu yidhi macallin baana loo keenay aan qaaluun balaa garanayn maadadana waa uun mutuhinayaa midh ka garan maayo
markaasaan waa ninkaana laga bedelo warqad baan qornay waana laga bedelay hadhow baa la keenay nin la yaab leh oo maadada suu garanayo suu dhigay aad yaabto qoladii kala tiri soo kaayigi meedaan bedelin ha kana taan ku dhigna eeg warqad baa la qoray mid garan maayaan laga bedelo waayo laga goosanaya qolad kaayigi hore bedesheenay jaahilka ah annaguna kala loo daadagayna wasida xaqiiqadu waa aynka marka walaalayaal ummad dhadhansanaysa qofka dhadhansanaysa meel ma gaadhay aan ogsoonaan qodobka afraad wuxuu yahay walaalayaal qabyaaladu asalkeeduba waa wahmi waa xub caaro waa bahashan maxaa la yiraahdaa waa baalkii loo oran jiray nin daad qaaday xumbo cuska waa xumbo waa qusaa wax jira ma adduunyada waxba kaaga tari mayso aakhirana waxba kaaga tari mayso qabrina waxba kaaga tari mayso waxaad u fiirsataa nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu calayh tusaalaha uu siiyey wuxuu yidhi layantahiyanna rijaalun can fakhrihim biaabaa'in inamaa hum faxmun min faxmi jahannam ha ka joogsadaan rag inay ku faanaan oo ku tookhaan odayaal dhindhintay oo xaabadii jahanname ah aw layakuununna ahwana cala allahi min aljuclaan allatii tadfacu nnatana bianfiha ama waxay noqon doonaan qaar ilaahay agtiisa kaga liitaa xarwalwaalka xaarka sanka ku riixa ayay ilaahay agtiisa kaga liidan doonaan bimacnaa xarwalwaalku waa xayawaan meel xunun jooga wax xunuu ka shaqeeya ilaa soomaalidu ay yidhaahdaan udgoonka iyo cadarka waa ku dhintaa iyagii yaa lahood laakiin xaqiiqada waxay ka qiyaaseenuun halka uu joogayo shaqadiisa qofkana qabyaaladu buu fara kula jiraayo wanaag iyo mabaadi iyo khayr iyo horumar kama shaqeeyo juclaan buu ka liidanaya juclaan waa maxay waa xarwalwaal wey mar kale tusaale kale uu nabigu bixiyo wuxuu yidhi man acaana calaa cashiiratihi bigayri alxaq ninka tolkii iyo qabiilkiisa xaqdarro ugu hiiliya fainamaa mathaluhu kabaciirin taraddaa fii bi'rin fahuwa yunsacu bidanabi ninka tolkii xaqdarro ugu hiiliya waa awr ceel ku dhacay dee waxaa laga maqlayaa sanqadhiisa meel fog fahuwa yunsacu bidanabih mar labaadka dabadaa la soo jiidaya awr ceel ku dhaco daba la soo jiidaa weligii soo bixi maayo tusaaluu nabigu bixiye waxa weeye dawo ma lihid sida awrkaa dabada la jiidaya aanu weligii u soo baxayn ayaadaana dawo lahayn intaad qabyaalad ku foogan tahay intaad qabiilka ku raacayso annaga ma yahay haybtayada ma yahay sumadayada ma leeyahay dawo ma lihid meel la gaadhi maysid dhinaca kale marka laga eego walaalayaal qabyaaladu waxay noqotay teedka ama dhufayska ay soo galaan dhammaan mujrimiinta iyo dembiilayaasha iyo ciyaalo suuqa iyo nahaabiinta iyo kuwa aan ilaahay shaqo ku lahayni waxay ku dhuntaan waa qabyaalad iyada ayuu kuu soo marayaa iyada ayuu korka ku imanayaa iyada ayuu kursiga ku gaadhayaa hadhowtana markaasaad cabaadaysaa bal waxaana maamulaya eeg bal siday wax u galeen eeg oo yaa keenay oo muxuu kuu soo raacay qabyaalad buu kuu soo raacay sumadii reeruu isku soo dhigay wuxuu yidhi dee waa inagii meeshaan inoo tegaya anaa ku matelaya maasaa tiri sumadii ma leedahay haa waa ku kaa ilaa aynu taa ka waantownana weligeen meel gaadhi mayno ka xaqa bini aadamka cuna ee xoolaha ogoonta dhaca ee ummadda xaalufiya qabiil buu soo xidhaayo hadhowta haddii la yidhaahdo ha la xidho ama ha la bedelo odayaal baa soo cumaamadanaya annagaana loo jeedaa boqolaal baa cunaye makaayagunbaa kamarade haysa ha la wada qaado waxaba subxaana allah oo adeer adigu mujrim dembiile ah oo xoolihii ummadda cunay sidee baad ugu hiilisaa sidee baad ugu xanaaqda xawla mariidyadu ku kaca walaalayaal haddaynu ka cabanayno burbur iyo dowlad xumo iyo maamul xumo innaga ayaa u aabba ah innagaan ka xoroobin bahashan baasayna haysataa ilaa aynu taa ka xorownana waa inoo abadaa maalinba ka ugu buuqa badan ee ugu balaayada badan ee ugu inkaaran ayaa odayaasha waxooga u daadinaya jalowga soodhay aniga igu shuba aniga waxaad tidhahdaan reerka hebel unbaa matelaya hadhowtana wuxuu doonuu samaynayaa magacaaguu ku samaynayaa kuwa taagan ee looga baqayo ee lagaga baqanayaana waa iyaga marka walaalayaal
durbo waxaynu arkaynaa dadkii oo dabada u ruxaya oo horboodaya oo hareero socda oo maxaa la yidhaahdaa taageeraya dad aan mutaysanin inay waxar mas-uul ka noqdaan waxar inay mas-uul ka noqdaan qaar aan mutaysanin ayay hogaaminayaan ay horboodayaan ilaahay ha ka baqdaan maalin aan maanta ahayn baa la weydiin doonaaye jawaabtay ku talagelayaan maanta ha diyaarsadeen wuxuu kharibe qayb bay ka yihiine cadaabka isagu uu badheedhay iyaguna ha u sii diyaar garoobaan weelkeedana ha toshaan haddaan saa la yeelin miyaa aynu ilaahay ka baqanno oo aynu caqli yeelanno sanawaad wa sanawaad baynu ku soo jirnay ree hebel ma yahay waa bal aynu bedello bal iska baddaa innaga oo aan diinba eegayne danteenna adduunyo ma eegana oo ma nidhaha waarkeebaa waxayna taraya oo biyo la'aanta iyo wadda xumada iyo xashiishka iyo qashinka iyo inkaarahaynu ku nool nahay bal waxayna yar bedela oo inuun xishoonaya haddaanu xataa alla ka baqanayn xishoonaya oo ka xaragoonaya xumaanta bal ma raadinaa haddaynu nin alla ka baqanayo ahlu iimaan ah alla kaba wacan laakiin haddaynu weyno adcafu liimaanka mid yar qajilaya oo xataa xumaanta aan aad u cantuugayn hadduu cantuugaya xataa faraha hore ku qaadanaya bal ma raadinaa ila way isdhaantaaye walaalayaal qodobka ugu dambeeya shanaad waxa weeye qabyaaladdu waxay keentay ummad dhan oo innaga inaga mid ah in cidlo lagu oodo oo la takooro oo la xaqiro oo xaqoodii ay lahaayeen la duudsiiyo oo aynu hangool dheer oo faraarale iskaga qabanno ma u guurinayno kama guursanayno cilaaqaad la yeelan mayno lama degno lama dhaqanno lama saaxiibno waxay naga soo gaadhaa waa cilaaqaad yar oo kooban oo danaysiya ummadda noocaasa ilaahay maalinaan maanta in buu ina weydiinaya waxyaalaha ugu badan ee diinteennu burburisayna waa alfawaariq alcasabiya dadku inay kala socnaadaan nebigu wuxuu laha alaa ayuha annaas ina rabbakum waaxid wa ina abaakum waaxid wa ina aadama min turaab وإن آدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى وارددوا ربكين واحد أو دينتين واحد أو أبيهن واحد وحلقا أبو رعيد قارن الدهب لغا ما أبورين قارن الدقاية دمس لغا ما أبورين وحكليا كأبورنتينو عيد بكود أبورنتي مد عربي مد عجم ومفاني كرو مد عجمينا مد عرب ومفاني كرو إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومدى نوع عاثين يسينو سبت كشيغين قنت كشيغين قبويها كشيغين إلهي ما لان ما تهيمين ويديني إنين كحروا نابال الربا وحيالها النوع عاثة ووحيالو نبي بابيي سينب بنت جحش وحقوريي زيد ابن حارثة وأدون هانشري وقبل قريشات وولب أبيهدي هو يدد بقريشيهين نبينا المابتي سكتو سيء أيو قريا أدونك أدون بوحان شري تيتنا سيدي بيانو قوان قش مالين كالي نين ليلة جليبيب وأدون هان شري وآدي آدو إتال درن ومريحون وموقال كيسو آنو قروح بضنين أيو لوار جليبيبو والنبي قدر سيجيسة فردي شري مرول بعد توقي شري أيو لوار يا جليبيب ألا تتزوج جليبيب وميانت قرسنين انتو دولة عديم يا رسول الله وهي هاي قوريناي يا قوريناي كان بينو كقوسو طلع قبي لي حالة دايدا يا حوق جيجا يا قبيل كيجا مركا دول بالله يقول وما بقرني ولا أنا كو قوريناي أبو النبي قول أيامو سجي ما لين تمنين أنصار وياري وربني بياضها هبلو إن أنت هذه لقد انتمت شوكتها ما عدت بعدها قوري سودي نعمة وكرامة رسول الله بقول كيا بقول سودي أنا قورسن مايو ها ninkii hore u soo kacay sidii nabiga kula xididaya ayuu yiri anigu guursan maayo Julaybiib baan wada Julaybiib wajigi wuu isbedelay balan hooyadeed waraysto hooyadeed ku noqdo hadii nabiga ahaan la ama nin kale hooyada kuma noqdeene horay buu ka guurin la subhanallah hooyadii buu tago wuxuu yiri nabigu inantii bay naga doonaysay nicmo wa karaama suri isagu ma doonayo sidii hada ayuu raba Julaybiib oo macida Julaybiib waxa nabigu noo waay waxay khaanada uu nooga baaray سبحان الله العظيم جليبيب عيدان هين ميواي والعياذ بالله سوري إن أنت ما مغشي واحد الرسول كإلهي
دوني ديسا ههور استاقنا دايا تيت النبي هو مهري ودعي وعلى اللهم صب عليها الخير صبا إلهي وخيرك كشب ولا تجعل عيشها كدا كدا إلهي إنه لو شيء عديدها كدقي بلا إيو مال ما بدن بيوضا نولايه نولول في عم بيكون نولايه جهاد مالتي دبلو بحي قال دي بابرت الاسكا اصلي قوبتي المسلمين تاكو غوليستو وحري نبي وحري صوت ركوب رغا نغا غيريودو شهيدي هبل 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 رغ بالا ترينيا رغا مقدا لا ترينيا عيد ما تبيسان مايا انو عيد بان تبيا نقدا way baareen hebel baan soo helay may noqda cid baan tabaya nabigu dartii uu baraya inaan dadka magac lagu eegin iyo muuqaal iyo nin reer hebel iyo nin dhumuc leh nin dherer leh anigu Julaybiib baan tabaya buu Julaybiib way ku noqdeen waxay soo heleen isagoo 7 gaal dilay isagana kii 8aad uu dilay saas uu qabtay nabigu laba gacmood buu ku qabtay oo garan kartaa awoodda uu leeyahay jidhaane suuri qatala 7 faqataluhu ما تندبوا دلينا ويدلين إلهي وأنا مرخاتك مالنا ما أنت هاي أنا مرخاتك مرخات قبر جو قضي قعدتي سكون داعية صحابة وحلا وحنو تمنيني ولا إنا نغنى نقول جليبيب ولا ليال ماله أنا ما أنت هبل هبل هكا جورسدان قبيل كاين وشيء وهي هذه هبل هبل كجورسان يقوم يكون يدخل من نغنى يجنا والله بدر ياو ummadu inay qaraar gaadho oo hawsha mar lagu wada dhaqaaqo illa dhaleeceeyay hal waayo marka haday 200 nin mar wada bilaabaan hawshaas waa dhamaanaysa waxayna inu gaari doona illa yabohiyo war kuma bilaabay 200 inay tirino maanta tirin mayno laakiin daruuri waxay noqonaysaa in hawshaasi aynu ka talaabsano war miyaana ceeb inagu ahayn magaaladii Hargeysa iyo Soomaaliya gudaheeda ayaa lagu takooraya Yurub markuu tago gaaladana waa la soo dhaweynaya markaas number la siinaya markaas passport la siinaya markaas shaqooyinka ugu wacan la siinaya markaas kuwa ka guursanaya markaas iyagi kooranayaan way aynu cadaankii uga guursanay idinkiina aan uga guursan laanay sidee tahay waxaan aad u la yaab nin baa wuxuu iga sheekeeyay qoladii Ibraha la oran jiray wiigana yahay Ibraha ee samaayaha gura jirtay ayaa Yurubta Yahuud ugu yimaadaan buul سيدا نجاتهين نما يهوداتين وارتقى بين عند الإسلام النهار عليك إنهنا وين يسيني يقول الجهاد بكتيران والله إن الله قاتنا وحوها أخيارا وحول أنت يهود ويمادان أي هذا حبر وبلا يدادو يهود باتينه كاليو إسرائيل لو كاليا سيدا تجا إلى هيد النار نعدل كركينات هرجع ثمركوا يمادنا ولا تكوريا ولا ربالسك كمان ولا ليال جودهان ومدو وين قبيلتك حرودا كارهان دتك موغدا اما دغالكم موغدا اما سياستكم موغدا اما aqooniyo cilmikum muuqda ama madax dhaqameedi waa inay ka waantoobaan bahashanaysi boqolaabaya war dadka waa in duntooda la eego iyo waxay yihiin waa in la eego qofka qiimihiisa waa in la tixgeliyo markaasina wax noqonayna xaaladahan aynu ku jirnana waxaanu kaga baxaynaa inagoo bahasha ka xorownaa waa giraan xun oo doqonnimo lagu teenagaga xidhane giraanta aynu jabino giraanta qolobo qaar bay ugu weyn tahay qaarba waa nooc qaar laba laka baa ku xidhan qaar saddex baa ku xidhan qaar mid baa ku xidhan way si kala dareeyeen qaar luqunta buuxda bahasha ka buuxda inaynu jabinaa baynu baahana ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa aynu laabno ilaahayna toobad keeno إنكارها يبلايو إنكار دعية نجا قيب كاه إلهي توبة دينو علينا إلهي قلبك هينون نظيفيه قبيلة الله نجد ويه إلهي قبيلة هي نجد ويه إسلام بدي حق قوة وكرجال الله نجير إلهي ديننا هي نقول إلهي الدنيا أخرب الله نقول إلهي إلهي وحن ويدي سننا سبحانه وتعالى خير كالدنيا خير كآخره أين ويدي سننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر